kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay dagaalka Laascaanood iyo Soomaaliya qodobada aan idin haynana waxa kamid ah Somaliland oo ku dhawaaqday inay weerar military ay qaadayso xilli la ogaaday guulaha iyo qasaaraha kala gaaray ciidamada deegaanka ACC iyo Somaliland oo dagaal xoogan uu ku dhaxmaray duleedka Laascaanood madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu booqday taliska ciidamada iyo Somaliland oo lagu eedeeyay inay diiday ergadii nabad raadinta colaadda Laascaanood yaan dagaalka maanta qaaday maxaa ka jira eedaha waaweyn ee la isku jeedinayo iyo safarka madaxweyne xasan ee furmaha dagaalka halkan waxaan kugula wadaagayaa xogihii ugu dambeeyay caawa ee Laascaanood balse daawada marka hore nagala qayb qaado faafinta muuqaalkan uu ku share garay Facebook si uu u gaaro dad badan una helna saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale haddii aad aragtidaada nagula wadaagta qaybta commentigana mahadsanida aan ku bilaabay jawi colaadeed ayaa caawa ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kadib dagaal xoog leh oo u dhaxeeya ciidamada deegaanka ACC iyo kuwa militariga Somaliland oo maanta ka dhacay jooyinka bariga iyo galbeedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana wali markaasi meelaha qaar laga maqlayo hubka noocyadiisa kala duwan oo isku ridayaan ciidamada iska soo horjeeda dagaalkan ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo markaasi la maqlayo xilliyada qaar madaafiic aad u culus oo dhinacyadu isku adeegsanayaan waxaana dagaalkan ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamaya iyo markaasi dad shacab ah oo ay rasaastu u tagtay madaafiicda qaar ayaa ku dhacay qaybo badan oo kamid ah magaalada iyo agagaarka bariga oo markaasi dagaal culus oo ka dhacay waxaana adag in markaasi dhaqdhaqaaq laga sameeyo gudaha magaalada maadaama ay xilliyada qaar dhacayaan madaafiic culus sida ay ku waramayaan goobjoogayaal ku sugan magaalada Laascaanood wararka ayaa intaasi ku dariyay in ciidamada deegaanka ACC ee gurmeedyo badan ay heleen kuwaas oo kaga imaanaya markaasi deegaano kala duwan waxaana ku biiray dagaalka ciidamo gurmad ah oo kaga yimid dhinaca maamulka Puntland guddiga sare ee ACC ayaa ku eedeeyay Somaliland inay weerar laba ji'a ay ku soo qaaday magaalada Laascaanood oo ay joogaan isimada dhaqanka ee ACC ergada nabadeynta ay markaasi berri ku wajahaan Laascaanood waxa ayna u sheegeen beesha caalamka in Somaliland ay halis ay ku tahay amniga geeska Afrika ayna duulaan ku tahay nabadeynta iyo markaasi deegaankooda isla markaana ay ciidankooda iska difaacayaan weerarka Somaliland ay ku soo qaaday inkastoo Somaliland arrintaas aysan ka hadlin marka laga yimaado warka guddiga sare ee ACC ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warinaya in ciidamada deegaanka ee ka dagaalamaya dhinaca galbeedka ay gacanta ku dhigeen markaasi aag lagu magacaabo Dhuyu Xuusha oo markaasi marin muhiim u ah gacan ku haynta xerada Gooja Cadde inkastoo aysan Somaliland ka hadlin wararka eedaha ay markaasi u jeedinayaan guddiga sare ee ACC ee ku aadan dagaalka Laascaanood dhinaca kale Somaliland ayaa si cad ugu dhawaaqday weerar military oo sheegtay inuu yahay mid qorsheysan oo ay doonaysay inay ku qabsato magaalada Laascaanood isla markaana ay sheegtay in guud ahaan deegaanada Somaliland ay kaga saarayso waxay ugu yeertay ciidamada huwanta sida uu sheegay afayeenka ahna madaxa howlgelinta ciidamada Somaliland ahna madaxa howlgelinta waxa uu markaasi eedo culus u jeediyay Puntland oo uu sheegay in ay doonayso markaasi inay qabsato magaalada Laascaanood dagaalkana ay ku jirto gaar ahaan waxa uu sheegay ciidamada Puntland ee sida gaarka u tababaran ee BSF inay qayb ka yihiin dagaalka Laascaanood madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo kormeer ku tagay taliska guud ee ciidamada Somaliland isla markaana ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta dhinaca amniga iyo ciidamada qaranka Somaliland waxa uu ku bogaadiyay kuna dhiirigeliyay dadaalka kartida iyo adkeysiga ciidanimo ay muujiyeen kana difaacaya markaasi qarannimadooda iyo sidoo kale weerar kaga imaanaya huwanta markaasi ka dagaalamaysa Laascaanood ayaa lagu yiri war markaasi lagu faafiyay telefishinka qaranka Somaliland madaxweyne Biixi waxa uu kala u bogaadiyay markaasi bahda warbaahinta oo xusay doorka ay ku leedahay arrimaha qarannimada iyo markaasi shacabweynaha Somaliland ee taageerada la barbar taagan ciidamada sidoo kale madaxweynaha Somaliland oo booqday taliska guud ee ciidamada booliska Somaliland waxa uu faray dhammaan ciidamada kala duwan inay laba jibaaraan dadaalkooda oo ay meel ugu soo wada jeestaan ciddii dhibaato la damacsan amniga qaranka geesta kale xog la helay ayaa sheegaysa in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu amar ku bixiyay inaysan Somaliland soo gelin ergada nabadeynta ee ka timid markaasi koonfurta Soomaaliya sida ay warinayaan ila ku sugan magaalada Hargeysa Somaliland wali kama aysan hadlin sababta ay ku diiday ergada nabad raadinta colaadda Laascaanood oo sida markaasi ergadu ay sheegtay ay ka madax bannaan yihiin dhammaan arrimaha siyaasadda ergadan oo ka kooban odayaasha dhaqanka beelaha dega koonfurta Soomaaliya isla markaana ay taageerayso dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa raadinaya in xal nabadeed lagu dhameeyo colaadda Laascaanood
marka laga yimaado warka ay soo wariyeen ila ku sugan Hargeysa ay ku aadan in madaxweynaha Soomaaliland uu diiday odayaasha dhaqanka ergada ah ee markaasi doonaya inay Laascaanood u tagaan arrimo nabadeed iyo sidoo kale magaalada Hargeysa si loo soo gabagabeeyo colaadda magaalada Laascaanood ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland oo ku aadan odayaashan iyo sidoo kale ergada nabadeynta ah ee dawladda Soomaaliya u dirtay Laascaanood.